waa kuma dambiilihii weynaa ee uga jira Mareykanka listiga dadka ugu halista badan ugu dambeynna noqday ninka taajirka ah caanka ah oo ay raadinayaan dhammaan kambaniyada modelka ah iyo kuwa filimanta Hollywoodka ajilo. I accidentally became a meme, and this is that story. My name is Jeremy Meeks, but you might know me from my mugshot. magacaygu Cabdiqafaar Gamaadid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada. Tani waa qisada ninka ay nolosha siisay fursadda labaad ee ka faa'iideystay ee aan meel cidla ah uga tagin Janiskaas. waxaa lagu magacaabaa Jimmy Meeks. waxa uu dhashay 7 February 1984 waxa uu ku dhashay Washington, laakiin nasiib xumo waalidiintiisu waxay ahaayeen dad nolosha ka dhacsan, daroogadana ka ganacsado. Jimmy asagoo 9 bilood jiro ayaa aabihii waxa uu mindi ku dilay hooyadii gabar ay saaxiibo ahaayeen. meeshaasna waxaa lagu qabtay aabihii xabsiga ayaana la dhigay. Jimmy ma uusan helin noloshii iyo jacaylka ula qaybsan lahaa aabihii. hooyadii ayadana waxay ahayd qof aad u dhib badan oo mar walba xabsiga gasho ka soo baxdo, daroogada ayana ka ganacsan jirtay. ugu dambeyn xabsiga ayaa toos loogu taxaabay. noloshii iyo ciyaalnimadii Jimmy waxay ahayd nolol aad u dhib badan oo aad u adag. wuxuu intaas ku socdo waxa uu soo gaaray da'da 15. waxa uu iskaga tagay Washington waxa uuna aaday LA. waqtigaas LA waxay ahayd magaalo ay ka soo baxaan gangsterayaasha iyo drug dealers. dhalinyaradu waxay aaminsaneen in magaaladaas LA ay ku dhisan karaan noloshooda. Jimmy asagoo 15 sano jira ayaa wuxuu u imaaday LA si meesha nolol maalmeedkiisa uga hela. waxa uu ku biiray gangiska streetka, waxa uuna bilaabay inuu ka ganacsado daroogada yaryar ee wadooyinka lagu iibiyo si nolol maalmeedkiisa meeshaas uga hela. I've just been in the streets. I've been locked up, you know, like half of my life. noloshiisa dhibaatooyin iyo qaxar badan ayuu ku jiray. sanadii 2002 asagoo 18 sano jira ayaa wuxuu dil iyo kufsi u geystay gabar 16 sano jirto. xabsiga ayaa la dhigay 2 sano ayaa lagu xukumay. kadib markii uu xabsiga ka soo baxay noloshiisa weli sideedii ayay ahayd oo weliba uu ka sii daray oo dhibaatooyin aad u waaweyn ayuu sii geysanayay. da'da 20 markii uu soo gaaray waxa uu bilaabay in hubka uu ka ganacsado. Jimmy waxa uu ka mid noqday waqtigaas kadib dadka ugu halista badan Mareykanka, waxa uu ka mid noqday listiga dadka dambiilayaasha ah ee waaweyn. laakiin wax walba waxay isbedeleen 18 June 2014. Jimmy iyo 3 ka mid ah asxaabtiisa ayaa waxay saarnaayeen gaari. waxa istaajiyay booliska. ayaga waxay u maleeyeen in booliska uu istaajiyay sida caadiga sida in la weydiinayo license ama speedka gaariga ayaa siyaadiseen, laakiin arrintu sidaas ma ahayn. boolisku waxay baaritaan ku sameeyeen gaariga Jimmy waxaana laga helay hub aan sharciyeysnayn. kadib booliska waqtigaas gurigiisa ay toos u soo aadeen. guriga waxa isku wada imaaday ciidamada Mareykanka oo dhan, FBI, NYPD, Homeland Security, DEA. sababtoo ah ninkan waxa uu ugu jiray listiga dadka ugu halista badan Mareykanka. aad ayaana loo raadinayay, waxaana lagu raadinayay hal cadeen oo lagu helay kaliya. And that's when we see all of the alphabets. The FBI is there, the DEA, the ATF, the Gang Task Force, you know, Operation Ceasefire. So when they gurigiisa ayaa baaritaan lagu sameeyay waxaana laga helay hub aan sharciyeysnayn, cash aad u fara badan iyo daroogo. waqtigaas kadibna waxaa loo taxaabay xabsiga, laakiin inta uusan xabsiga soo gelin sawir laga qaaday markaas ayaa waxaa la soo dhigay Facebooka. 24 saac gudahood sawirkaas waxa uu helay 50,000 oo like, 3,700 oo comment. dadkaas oo dhan waxay taageero u muujiyeen Jimmy ayagoo dhahayo ninkan cute ah, handsome ah ama qurxlowga ah xabsiga uma qalma ee laga sii daayo. ciyaar ayay ka dhigteen, meel walba waxa laga hadalhayay asaga. Facebooka, Instagramka, Twitterka, social media kaliya ee lagama hadalhayn Jimmy ee xitaa waxa hadalhayay telefishinada waaweyn ee newska loogu talagalay. aad ayaana loo bumbuuninayay kaliya waa uu qurxan yahay xabsiga uma qalma ayay dadka dhahayeen. waxaa la sameeyay hashtag lagu taageerayo Jimmy in xabsiga laga sii daayo. maalmahaasi asbuucyadaas oo idil waxa la hadalhayay dambiilahan. asagana 4 darbi dhexdooda ayuu ku jiray oo wax banaanka ka socdo waxba kama uusan ogeyn. I'm on every single news station. It doesn't matter what channel you flip to, I was on it. Daytime TV, you know, I'm on everything. Within 72 hours. Jimmy saaxiibkiis ayaa banaanka ka soo wacay waxa uuna u sheegay saaxiib viral ayaa noqotay. ninkan macnaha viral ma uusan aqoon oo ma ahayn in wax soo bartay. waa uu weydiiyay maxaa laga wadaa ayuu yiri. waxaana u sheegay saaxiib meel walba adiga laga hadalhayaa telefishinadii, jaraa'idiyadii. Jimmy waa uu yaabay kadib qolkiisa ayuu iskaga soo noqday. All the way down to visiting. It was one of my really good friends. He was just like, man, you went viral. And at this time, before my head, zero idea what viral meant. And he was just like, you're all over the world. banaanka waxa uu ku yeeshay taageero aad u fara badan waxayna bilaabeen in hadiyada qaali ah xabsiga ugu keenaan sida in uu lacag uu xabsiga ku dhex isticmaalo. waa uu kala badbatay oo wax uu sameeyay ayuu aqoon waayay. asagoo xabsiga ku jira ayaa waxa uu soo bandhigtay heshiis contract inuu u saxiixo kambaniyal aad u waaweyn sida kuwa modelinka ah. asagana waxa uu sheegay waqtigaas in wax contract la dhaho uusan aqoon weligii uusan maqlin sababtoo ah ninkan ma ahayn nin waxbarashada asaasiga ah soo dhigtay.
I received, I believe, 45 contracts, whether it be modeling, management, movies, and I had never, ever in my life even seen a contract before. It was like trying to read French. Very. xabsiga markii Jimmy uu ka soo baxay waxa ugu horeeyay uu qabtay waxay ahayd model company ayuu heshiis la saxiixay waxa uu bilaabay in dharka uu xayisiyo. It's a whole new world, and I like really hit the ground running. I've walked the biggest fashion shows, Milan, Paris, the list goes on. I shot 5 movies in 10 months. Some of the biggest campaigns. It was just crazy. nolosha Jimmy way isbedeshay wuxuu sidoo kale heshiis la saxiixay kambaniyada filimanta Hollywood ka ajilo waxa uu sheegay in 5 bilood oo kaliya uu ku jilay 10 filim marka ka sii dambaysa noloshiisa iyo lifestyle-kiisa isa sii bedelaysay lacagaha uu Jimmy ka helay shirkadaha modelka ah iyo kuwa Hollywood ka waxay ahayd lacag aan xadad lahayn oo aad u fara badan waxaan oo dhan ku dhaceen oo ninka noloshiisa isku bedeshay waa kaliya hal sawir oo laga qaaday oo Facebook la soo dhigay oo ay dadka ka falceliyeen oo dhaheen ninkan waa qurxan yahay kaliya quruxdaas style-kaasna waxa uga faa'iideystay kambaniyashaas modelka ah iyo kuwa Hollywood ka ah iyagoo ninkan noloshiisa bedelay ujeedka sheekadeena aan kaga hadlaynaa ninkan ma ahan inaan xayisiin u sameynayno ee waxaan ka sheekeynaynaa qiso sax ah oo taariikh ah oo ku dhacday ninkan qaabka noloshiisa isku bedeshay muhiimadda iyo ujeedka aan kaga sheekeynayna qisadan waa inaad ka faa'iideysataa fursad walba oo ku soo marta noloshaada sababtoo ah fursad walba oo ku soo marta dib dambe kuguma soo noqonayso haddii aadan ka faa'iideysan ninkan maanta Jimmy noloshiisa waxay ahayd nolol daroogo nolol mugdi maanta noloshaas ayuu ka soo baxay waxa uu galay nolol kale oo una ka faa'iideystay. Now I'm on a photo shoot and you're telling me to hold my arms like this, and it was just hard to adjust like to this new life. It's been a wild ride, and I'm so grateful. You have to do right by it. I'm not taking anything for you. qisadani aan kaga hadalnay Jimmy Mix intaas ay noogu eg tahay haddii aad u aragto muuqaalada aan soo gudbinay inay yihiin muuqaalo faa'iido leh nagu soo biir subscribe inoo dheh muuqaalkana like dheh si ay noogu noqoto dhiirigelin.